dareemi kartiin haddii aad tihiin waalidiin hooyo carruurteedii laga qaatay oo carruurteedii ay ka maqan tahay haddana la leeyahay waddankii waa lagaa saarayaa waa arrin aad u xanuun badan arrin aad u dhibaato badan ka warran haddii adiga ahaan lahayd booskaas aad taagnaan lahayd maanta allah subxaanahu watacaala wuu mataqaanaa kaa badbaadiyey laakiin qof walaalkaagoo adoo kaleeto ayuu haystaa waxaa lagaa rabaa booskaasoo kale inaad soo istaagto marka ku fikira arrintaa yaan laga seexanin halisla soo xiriiro arrintaa inaan degdeg howshaas u galno waxaa kuu wacan waxaa waaye inaan gaarsiino baaq ah in arrin yaroo nagu cuslaato annaka naga tan badisay inaan la wadaagno ee nala wadaagaan ayakana taasoo ah walaasheen oo laga qaatay carruurtii haddana loogu daray in laga qaato sharcigii marka waan awoodi kari weyno waa naga tan badatay marka wixii nin dhibaa laba ma dhibaan marka bulshaweynta Soomaaliyeed anoo ah gudoomiyihii jaaliyadda Bergen ka wakiil ahaan jaaliyadda Bergen mar walba wanaaga ee ka qayb qaadatay iyo kaalinteeda sidii aan uga gaabsan dhammaan baaqyada nooga yimaado dalka Norway iyo dalka dibadiisa intaba ilaa Soomaaliya waxa nooga yimaado annagoona ka gaabsan maanta waxa u baahannahay annaka tookadeena maraysa in la garab istaago inaana laga gaabsan ina qof kasta uu awoodo inuu koontaas naga la soo xariiro oo arrinkaas naga la qayb qaato ma dhaheena kaliya dhaqaale waxa u baahanahay duco in la garab istaago qofkii tala awoodo inuu la garab istaago maxaa la yiri oo rasuulka ilaahay sallallahu alayhi waxa la idinku naxariisanaa waxa way kuwa ducafadiin qofka allaala ducafada kaliya ma aha kaliya qofkii inuu daciif yahay laakiin qofkaana karin maanta dhaqaale ha noo soo duceeyo arrintan waa nagu adkaatay waa naga tanbatay 3 caruur aan laga qaatay dadaalka sameey karnaa sameeyna waa naga dhamaatay marka Soomaalidu waxa uga baahannahay walaalka Xasan Baaqa ku wacna ina naga gaarsiiso oo idaacadeena aan isticmaalno oo codkeena ay gaarto qof walba iyo meel walba oo adduunka ka joogo si ugu fududaato inuu naga la qayb qaato arrinkaas waa arrinka ku wacnay waana ku mahadsantahay aqbalaada naga ajiibtay iyo sida noogu timid oo nagu sharaftay Allah ku sharfa adduun aakhir asheen dibka soo gaaray ma ahan mid hal ama laba ah waxa way laba xawaati sheeg problem hal mar isku soo dhacay muddo wadankan waa joogay ka badan 30 sano ku dhawaad waa joogay laakiin wali ima soo marin qof dumar oo xawaati sheeg inta sharciga laga cishtay isla markaana xawaati sheeg ilmaheedii laga qaatay ee leer wadanka aad waa kiiska ugu horeeyay oo magaaladan soo mara taas marka dhibaatada weynta gabadha ay hayso Soomaalida meel kasta joogan waxaan leeyahay waa midaan anaga xawaato dareenkeeda aan leenahay iyo xawaato dhibkeedii diinteena islaamkana waxay nafareen inaan is caawino oo xawaato sheeg qof walba qof kale walaalkiisa iscaawimo dhinaca kale hataa calankeena hadad heestiisa fiiriso yani Soomaaliya tooso isku tiirsadayay ninkii taag darana waxa taageero wiligiinay ay calankeena heestiisa ay tahay taasna idan waxa way calankeena dhanba wuxuu ka hadlaa in la istaageero marka walaasheen waxa waayay sheeg dhibka haysto ugu weyn waxa waaye dhaqaalihii waxa waayay sheeg loogu dacwoonahay ama loogu doodi lahay oo advokaatyaal loogu qaba lahay ama maxkamad keeskii loogu gudbi lahay taasoo lacag aad iyo waxa waayay sheeg u badan ah aysan macquul ahayn inay xawaahato dadka xataa Bergen degan ama xawaahato sheeg ayada jeebkeeda waxa ay daboolaan marka Soomaaliyu hadii ay iskaashato waxaan hubaa inay xawaahato gabadhan xawaahato ilmaheedin ay heli karto sharcigeedina loo soo celi karo marka taasaan aaminsanahay Soomaalidu waxa shinni kama liidato shinni waxay samaysaa malab marka annaga haddaan Soomaalinahay haddaan aan wada shaqeyno oo soo tagno waxaan hubaa in walaasheen sharciga heli karto waxa waayay ilmaheedina heli karto ama inta ku noolaato ama dalkeeda ku noolaatana ay si nabadgeliyo biis ay ku noolaan karto waxa waayay marka waxa waayay waxaan codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mas'uul iyo mid mas'uul ahaynba in waxa waayay maanta waa maalinteeni waxa waayay gabadhaas walaashaas aan garab taagi lahayn ayaa waxa waayay Soomaaliyeed ay ka muuqan doontaa insha Allah